Mareykanka iyo Israel ayaa kala saxiixanaya heshiis rasmi ah oo lagu soo afjarayo colaadii u dhaxeysay ee labada dal, kaasoo qorshaha uu yahay in maanta si rasmi ah labada dhinacba ay u kala saxiixdaan heshiisyo rasmi lagu gaarayo oo xabad joojin xal waaro oo rasmi ah. Xabad joojin tii ugu dambeysay inay kala saxiixdaan Iran iyo sidoo kale Mareykanka. Maanta ayaa lagu wadaa in si rasmi ay u kala saxiixdaan Iiraaniyiintu iyo Mareykanka heshiis rasmi ah kuwaas oo lagu doonayo in lagu gaadho xal waaro oo rasmi ah. Qorshahan uu yahay sidii loo gaari lahaa xabad joojin oo rasmi ah. Inkastoo ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu qalqal ka muujiyay arrinkaani isagoona sheegay in Mareykanka uusan ka filanaynin in heshiis rasmi uu la gaaro, haddana madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa sheegay in heshiis ay wada gaari doonaan iyaga iyo Iiraan, isagoona sheegay in qorshaha uu yahay sidii loo gaari lahaa heshiis rasmi ah oo waarta. Isagoona xusay in heshiiska ay wada gaari doonaan Iiraaniyiintu ay si rasmi ah oo dhowaan ay u kala saxiixan doonaan iyadoo maanta ay ku beegan tahay. Dhinaca Iiraaniyiintu ayaguna ay sheegeen dhowaan inay kala saxiixan doonaan heshiis, sidoo kalena heshiisku meel fiican uu marayo meelmarintiisa, iyagoona ay sheegeen heshiiska in waxyaalaha ugu muhiimsan ay ka mid tahay xabad joojin oo rasmi ah ee maanta laga bilaabo in la gaari doono, iyo sidoo kale colaadii ka taagneed ee Lubnaan gebi ahaanba inay istaagayso. Iyagoona inkastoo faahfaahin dheeraad oo kale madaxweynaha Mareykanka dhankiisa uusan ka bixinin, haddana Trump ayaa la aaminsan yahay inuu si weyn ugu soo horjeeday arrimaha ay ka mid tahay nuclear-ka, laakiin wax faahfaahino kale kuma aysan soo gudbin. Waxaa kaloo lasoo tabinayay in shuruudaha ay Washington si aad culus ay ugu ahaayeen, maadaama Iiraaniyiintu ay sheegeen inay ku adkeysanayaan go'aankooda, laakiin marnaba aysan aqbali doonin in faragelin lagu sameeyo madax banaanidooda. Arrimo ay ka mid tahay maamulidda Hormuz ayaa ka mid ah waxyaalaha la isku hesay. Dhinaca kale dalalka hogaaminaya heshiiskan oo qeybka oo hogaaminaya dhexdhexaadinta ayaa kala Bakistan, Qatar iyo sidoo kale dalal kale oo iyaguna doonayay in labada dhinac xal waaro oo rasmi ah laga gaaro, iyagoo maanta ay kala saxiixan doonaan xabad joojin rasmi ah kadib markii sii xoogeysatay colaadda u dhexeysay Mareykanka iyo Iiraaniyiintu 28 bishan February. Dhanka Iiraaniyiintu waxay sheegeen inay rajayn doonaan wixii intaa ka dambeeya wanaag iyo sidoo kale guulo waaweyn inay gaaraan, iyagoona ay sheegeen in madaxweynaha Mareykanka ay ugu digayaan sidoo kalena cabsi ay ka qabaan in la farageliyo heshiiskan oo dhanka Israa'iil ay soo farageliso, iyagoona ay sheegeen sidoo kalena ugu digeen Mareykanka in Israa'iil ay faragelin ay ku sameyso heshiiska oo dhowaan la saxiixan doono. Wixii faahfaahin kale ka soo kordha halkan kala socda mahadsanidin.